Live from our studios in Taleex and Bohodle. This is Radio Khatumo. Radio Khatumo. Radio Khatumo. بعدنا مقالة نيروبي بانسي قبية هدي الله يدمر سفر يرو هرانا نقول تلقلين ودقدق نقول سوق ليبو قهرا أولو كل اللي جمع رمي وايم بانا سفر كاو وقاضنا إياه فلاح أنتي ممو يقول يب كبب بقى هدان دوفينان سند مقناضو مركن وحن سليهيت وبدنان 18 17 إلى 18 سليهيت مقناتي إن شاء الله ولي روب كينا من دمان وقت يسي من دمان إن شاء الله برواقو إيو بش إيو روبان مدر الله ينباني الكوردان إلهي وقبرينا أولها أنا نتقينا أنا وهولو وقت أنا هيسنانا وسنيرين أولا الله حريرة دي أي سورتو بيسو بلين لغا هول قالو السكيني ده مسؤولين تي مدحضة يا وحجرتك ماخر يا خاتمه وضد ولا لا وضد الكود الدجا وضد سكدنا سيدا هذا أي قد صوت كرمه الصومالي ده أنا واحد مدة رميه إن كونفورت إلى هذا سيدا وحم مغضان أي كسو كوبين معمول كل ديسيبه gobolada hore koonfureed Talyaanigu gumaysan jiray arimaha waqooyigana waxaad moodaa waxaana ka kulli noo muuqda oo loogu talagalay oo maamulka iyo midnimada Soomaalida iyo qarannimada Soomaalidu ay ku wada soconayaan ma muuqato taasaan isleenahay hawsha looga baahan yahay ma aha labada beelood ama labada dadyow Sool iyo Sanaag iyo Cayn dega ma aha ومد مدنمada Soomaalida iyo qarannimada Soomaalida ay muhiim u tahay waxaan qabaa hadeen arintaas suurtoobin in caraaqil aan hadda cidna ugu muuqan inay soo banbixi doonaan sida Somaliland oo hadda muddo 24 sano ah 24 sano lahayd xor baanu banahay oo maamul baanu nahay inkastoo adduunka wax tiraafay ayaan jirin laakiin hadiiba January ay timaado oo barnaamijka loogu talagalay 2016 ay ku koobnaato koonfur waxa isweydiin leh maxaa loogu talagalay goboladii waqooyi ama ha noqdeen kuwan midnimada Soomaaliyeed u dhimanaya ilaa hadda dagaalka ugu jiray meesha qudhe dhig Soomaaliyeed ku daadanayo si loo daafaco midnimada Soomaaliyeed oo gobolada tan hadda aan ka hadlayno waxa loogu talagalay waa su'aal isweydiin leh mid hadda uunaan ku hanbabarayna ma aha waa mid noo muuqatay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyayna ay noogu muuqatay inaan laga maarmin in arrimaha Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama USB guud ahaanba ciddii la waxbaan goosanaynaa iyo ka cirka roob ku og laakiin dadka intooda kale midnimo Soomaaliyeed iyo qarannimo Soomaaliyeed rabtaa arintaas in degdeg wax looga qabto maanta qabasho leedahay haddaan maanta arrimaha wax laga qaban oo waajibka ugu horeeya wuxuu saaran yahay dadka Sool Sanaag iyo Cayn inay arinta Soomaalidu waxay tiraan walba gacmihiisu biyo kaga dhargaa in arintaas ummadaas markan ay u gurmato mar walbana taariikhda Soomaalida waa lagu yaqiinay goboladaas inay hormood ka yihiin difaaca qaranka Soomaaliyeed gobonnimo nabadoonka la dagaalanka isticmaalka tanna waa si kala bay u soo baxday haddana waajibkaas dadkaas u saaran yahay waxaana hubaa in dadkaas ay waajibkooda taariikhiga ay gudan doonaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama dadka maakhir iyo khaatumana inay hawsha ka soo bixin doonaan ilaahina sabab uga dhigi doono soo noqoshada midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin